waxaan maanta ka soo qayb galay shirweynaha dhalinyarada sanad walba markuu bilowgiisa la qabanayo markii labaadan ka soo qayb galaynay oo diyaariyay xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda deegaanka Soomaalida iyo macadka Hiray iyo golaha federationka dhalinyarada deegaanka iyo qaab dhismeedka kala duwan ee dhalinyarada oo dhalinyarada garaadkooda iyo fursadaha jaray iyo maadaama dhalinyaradu lafdhabar bulsho ay tahay marka waxyaalo badan dhinaca horumarka nabadgelyada shaqooyinka tabarucaadka bilaa hagaaga la qabanayo maadaama dhalinyaradu shaqooyinka ugu weyn horumarka ay qabanayaan markasta in fikradooda iyo la dhageysto iyo waxyaalaha ay tabanayaan la dhageysto wixii horumarka ama fikirka dawladda lagu horumarinayo muhiim tahayna in maxaan ku raadayay dhalinyarada laga qayb geliyo ayaa muhiim tahay marka taana fursadaasna waan ka faa'iideysanaynay marka si guud dhalinyarada deegaanka waxaan uga talinayaa inaan ka qayb qaadano xaaladda socotay ee jiilaalka hadda dheeraaday meelaha biyo la'aanta ka jirto inaan garab istaagno sida gobolka hadda aan ka imaaday oo dhalinyaro badan iska abaabushay oo hadda bulshada jiilalka ku dheeraaday oo biyaha loo dhaaminayay marka iyaguna aad baan ugu madcelinayaa dhalinyarada gobolka Daawa sida shacabkooda u garab taagan yihiin marka insha Allah taana dadaalkaasna inaan laba jibaartaan ayaan idinku talinayaa si guud dhalinyarada maanta inaan garaadkeena aan kor u qaadno dhinaca qayb qaadashada xaaladda casriga ee hadda socoto oo fursadooyin badan oo jiray inaan ka faa'iideysano oo khabuuro badan oo maanta dhalinyaradu halka ka jeedinayna waan ku bogaadinaynaa sidaan ognahay awoodsiinta dhalinyarada marka la leeyahay waxaa la isugu keenay dhammaan baahiyihii dhalinyarada hadday ka qaybgal noqon lahayd kobcinta garaadkooda aqooneed ka faa'iideysiga xirfadaha kala duwan ka qaybgelinta arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshada sidoo kale waxaa ku lifaaqan halkudhigiisa markaad dhinaca kale u fiirso awoodsiinta dhalinyarada sanadkan awoodsiinta dhalinyarada xilliga casriga ah marka waqtiga hadda aan galnay sida aan wada ognahayba waxaan galnay waqti hadda ay dunidu noqonayso duni casri ah oo digitalizationka ama madartaay aaladaha casriga ah tiknoolajiyada loo guurayo marka maadaama tiknoolajiyada loo guurayo waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo dhinaca laga soo bilaabo awoodsiintii madartaay ka qayb gashay ama ka faa'iideysatay oo madartay soo bandhigayso dhinaca aaladihii faraha badnaa wax soo saarka ay sameeyeen oo iyagoo ka faa'iideysanayo isbeddelka iyo horumarinta madartaay ka jirta deegaanka sida dhinaca kale tiknoolajiyadu dad badan oo goobaha ama geeskaba jooga waxaa la rabaa inay gaadho fikradahan la iswadaarsanayo madartaay hadday noqoto doodaha hadday noqoto waxyaabaha la soo bandhigayo faa'iidada ay leedahay tiknoolajiyada qaabkii looga faa'iideysan lahaa waxyaabo badan oo noocaas oo kale ayaa ku duugan waxaa kulankan sanadlaha ka soo qayb gala sanadkan sanadkiisina waan galnay xilligiisina maanta waan taagannahay kulankan waxaa diiradda lagu saaraa oo uu yahay waxa weeyaan muhiimadiisu awoodsiinta dhalinyarada xilliga casriga awoodsiinta dhalinyarada xilliga casriga kulankan runtii waxaa ka soo qayb galay deegaamada harrida oo kale sida oromada oo kale sidoo kale Soomaaliland baa ka soo qayb gashay oo qayb ka ahayd maanta dhalinyaradeedii runtii kulamada noocan oo kale waa kulamo runtii dhalinyarada lagu dhiirigelinayo hal abuurkooda waxqabadkooda waxyaalaha ay sameeyaan ay ku soo bandhigaan bandhigan marka iyo kulan weynahan waa kulan kaga duwan kulamadii hore aan galay oo kale xilliga lagu jiray casriga inay ka faa'iideystaan dhalinyarada runtii waa door muhiim ah waa lafdhabarta bulshada dal kasta ama waddan kasta ama deegaan kasta ama bulsho kasta ay leedahay waxay muhiim u tahay in kulamada noocan la sameeyo qaybaha kala duwan ee dhalinyarada si ay isku dhexgalaan isdhexgalkooda bulsho isdhexgalkooda wax soo saar isdhexgalkooda waxa weeyaan aqooneed kulankan runtii waa mid muhiim noo ahaa xilligan lagu jirana muhiim sii ah runtii waxaan leeyahay dhanka doorka dawladda in macnaha dhalinyarada ay kulamo noocan oo kale howlahan oo kale ay badiso noona badiso runtii si aan macnaha isu dhexgalo wax soo saaradana loo qayb galo sanadahan dambe dhalinyarada waxa loo qaatay in la hormariyo aqliga dhanka maskaxda xirfadahooda kala duwan
la hormariyo oo maaragtay la hormariyo xirfadooda si loo hormariyo dhalinyarada isdhexgal looga helo isbartaan xirfadooda loo hormariyo dhankooda siyaasadda kor loogu soo qaado dhanka siyaasadda waa laga qayb geliyey xirfadooda kala duwan kor baa loo soo qaaday iyo dhanka ganacsiga waxyaalaha kala duwan hadda halka nooga muuqdo dhalinyarada isaabushee social mediaha iyo maaragtay social mediaha maaragtay iyadana xirfadooda kusoo bandhigaysay shirweynahan wuxuu kaga duwan yahay shirweynihii hore waa waxaa loogu madaxay shirweynaha horumarinta dhalinyarada casriga in lagu hormariyo casriga nidaamka casriga iyo miidiyaha dhalinyarada waxaa looga baahan yahay inay horumariyaan xirfadahooda